بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها مقالة دينوضاء هويوينكا odayaasha macallimiinta كم يا dhammaan inta meesha isugu timi aad baan idin salaamayaa salaanka bacdi waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta leh waad noo soo dhaweyseen maanteeto annagoo ahayn team ka yimid degmada Jariiban deegaanka u socday waday geedi caana leh aad baan idinkaga mahad celinaynaa sidaad noo soo dhaweyseen intaas haddaan ka gudbo waxa kaloo idinkaga mahad celinaynaa inaad nala qaadateen hanaanka loo guuray oo dawladda Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay wado oo geedi caana ah inta haddaan ka soo gudbo waxaan rabaa anigu sidaad ogtiin waxaan ka tirsanahay maamulka degmada Jariiban waxaa jira deegaano badan oo ay ka mid tahay magaalada Dhinowda Boqolooc Hirsalaama Galhagoog Bacduur Barayacay waxaan rabaa jiray deegaanadaas intaas beesha degta waxaana markhaati waa inay beeshu degto waxaan rajaynayaa doonaa haddii Ilaahay nafta baaqa iga dhigo inaan mari doono oo sida hadda idinla hadlay aan ka soo hadli doono waxaan wasaaradda arrimaha gudaha aan ka rabnaa iyo guddiga doorashooyinka deegaamada degmada dawladda Puntland iyo gobolka Mudug deegaanada hoos yimaado kurtigood wax la geeyay joojooyin waxaan rabaa inaan weydiiyo wasaaradda arrimaha gudaha deegaanada Boqolooc Hirsalaama Bacduur Ceeldhanaane Galhagoog maxay ku waayeen soojadii ma istaahilaan miyaa ma dadka joogaan u qalmin waxaan rabaa su'aashaas inaan weydiiyo wasaaradda arrimaha gudaha waxa kale oo aan rabaa inaan idin sheego barnaamijkii waa isla qaadanay haddaan nahay reer Dhinowda iyo haddaan nahay dadka deegaanadaas dega laakiin waxaan rabnaa haddii guddiga doorashooyinka Tibeg iyo wasaaradda arrimaha gudaha haddii aan ka wada hadlin oo aan turxaan bixin oo wixii jira aan la ogaan waxa weeyaan hadda maanta waa soo dhaweynaa laakiin maalintaas ma soo dhaweynayno waan ka laabanaynaa waxba hadda waxa weeyaan ma gaarin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته